barnaamijkan caawaynu fadhino oo ah barnaamij falanqayn ah kaasina falanqayn doona hanka haweenka waxa iga xasuusin ah barnaamijkan uma daarana in laga hadlayo xuquuqda haweenka laakiin waxaanu ka hadlaynaa hanka iyo himilada ay leeyihiin iyo siyaabaha loo rumayn karo barnaamijkan ku daaranaan doona saddex qodob ayaaba falanqayntan ku saabsanaan doonta waxaanu eegi doonaa farqiga u dhaxeeya gabadha waxbaratay iyo gabadha aan waxba baran waxaynu eegi doonaa caqabadaha ka hor iman kara inantu markay wax baranayso ama markay gabadha wax baranayso marka ugu dambaysa waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala caqabado ama kaalinta in laga yahay ka jiraan horumarka wadan dal ama shakhsi ama gaar ahaaneed sidee horumarka kaalinta kaga jiraan barnaamijkeenu inta hore waxa uu badnaan doonaa kelmado kooban oo ay jeedinayaan shakhsiyaad naga mid ah aad u kooban oo ku saabsanaan doona barnaamijkeena qaybtina labaad waxay noqon doontaa qaybta falanqaynta oo ay ka qayb geli doonaan xubnaha hortiina fadhiya oo gadaal idinka bari doono marka ugu dambaysa waxaynu gudbi doonaa qaybta su'aalaha ay aad u soo koobi doono insha Allah taala barnaamijka waxaan idinku yeerayaa oo eraygeeda oran doonta agaasimaha guud ee barnaamijkan soo agaasintay isku soo dubariday waxaan yeerayaa Samsam Hussein Hassan oo ahayd barnaamijka qofkii soo agaasimay si fiican ila soo dhaweeya Samsam Hussein Hassan si fiican ila soo dhaweeya أولاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلامات سلانة صحا ودقونا تذكر السراتين من سوري قارية سهل بي أتاي قار من واسريديو قمر سو افتيمو بالها سفاية قدر سورو قادو من واسفين دبا سنة إسلام كو وحي ساعي داروح سفيه ستين كو عام بحي وحبيانا سيتبين صدر كاتح مالك عن سور قوية ويرها كل جين سلام با سابليد فاديو حبيدة ونها سوران متكسو قردان إلي سيداتي من نبض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحما هذا أنا سوكو بكرين إسكالي الله سبحانه وتعالى إن قد جاء أمة المسلمين سيدو كلنا إنه سورة جلية إن نسكو إيمانا بركولا علميات مدار شام بقران بلان كل برنامج كمجلس سيدا هرم مغلسين مجلس وحلا هذا هرم مريحان كهواك كل برنامج كوقت يقول لنا يروح هاد وقت أما درين كيجا كانوا وحها درين رنهاتي دبا أو أنا جو وحي جبت لي رنهاتي أما هيقول عذو أما تذكر بها يقول عذو waxaan idinta taaban doonaa sababaha barnaamijkan ugu dhaliyay inaan abuuro ama aan hada fikradan aan keeno aan bulshadayda gaar ahaan aan haweenka wax kaga bedelo qodobka koowaad ee igu keenay waxay ahayd aniga laftigaygu waxaan ahay inaan mar walba jecel inay ummadeeda wax u tarto sida inay noqoto dhiirigeliso ama arrimaha bulshadaba markaan intaa ku guda jiray waxaa dhici jirtay ereyo badan oo laygu yiraahdo ay ka mid tahay gabadh baa tahay waxay mashquulkan badan aad gashay markaasaan ku yiraahdaa dee walaal mashquulka waxa weeye waxba bartaa weydii sidee waxay ku yiraahdaan ma taqaanaa sida lambarka loo qaraacaha magacaaga ma qori kartaa waxa ka maqan noo sheeg horta taasi waxay ka mid ahayd waxyaabaha ay ku dhaliyeen barnaamijkan abuuro sidoo kale waxa ka mid ahaa waxyaabaha ay ku dhaliyeen barnaamijkan inaan abuuro maalmaha ka mid ah ayaa waqti waxaan la qaatay gabadh aanan imika magaceeda sheegay oo ah haldoorada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gabadhaas markaan meel baan wada fadhinay sharaab baan wada cabaynay waanu siro waraysanay marka gabadhaas waxay gabadh aan ku daydo ku weysaaysaa jirta waxaasan jecelahay marka waanu waraysanay waxa igu tiri waxa jirta bay igu tiri hooyo maalihii aan ku jiray hayaankayga nololeed ama kayga waxbarasho waxaan ahaabay tiri aan ka soo jeeday reer faqiir oo waxba haysan aabahay uu xanuunsanayay sidoo kale hooyana way dhimatay xaafadda curad baan ahaabay igu tiri maan hay family caawiyo oo waxbarashadayga caawiya sidoo kale waxaan ahaa qof jecel mar walba inay bulshadeeda wax u tarto waxna barato kadib waxay ku dhacay bay tiri in la niyajiyo ina waayo waxaan iskaga bixiyo waxbarashadii sidoo kale waxay igu dhacday in familkeygii ay caqabad bay igu noqdaan kadib
waxaan go'aansaday inaan noqdo mid wax barata mid u adkaysata duruufaha nolosha kadib saan u waday waxbarashadeedii waxaan go'aansaday inaan xijaab la'aan wax ku dhigto waxaan go'aansaday inaan kaba la'aan wax ku dhigto waxaan go'aansaday inaan cunto la'aan wax ku dhigto waxaan go'aansaday in aan duruuf kastoo noloshu ay soo mariso aan ku dhigto kadib waxa dhacday gelin waxaan dhigan jiray iskuulkayga bay tiri gelinka soo hadhayna oday ayaan la iibin jiray bagaash yar u haysto sida taydha iyo timirta iyo waxyaabahaas oo kale sidan ugu jiray marxaladda nololeed gelina xaafadda uga shaqaynayay ayaa waxay tiri waxa dhacday bagaashkii yaraabaa odaygii ka burburay deet markuu odaygii bagaashkii yaraa ka burburay way noloshiiba igu sii adkaatay xataa dadka iskuulka maamulka ka ahaa way diideen inay caawiyaan san adigu hawsha uu waday nolosha adag ugu jiray waxa dhacday inaan markii dambe secondarygii dhameeyo kadib secondarygii markaan dhameeyay imtixaankii waxaan galay kaalmaha sare meel yar baan shaqo ka helay nolol maalmeedkayga ku filan sidoo kale waxaan helay waxbarasho bilaasha sidii baan jaamacaddii ku dhigtay jaamacaddii markaan ku dhigtay waxaan u noqday reerkayga iyo ubadkayga han iyo rajo u soo baxda oo maxay hayday u noqotaa nal ay diirsadaan yacni wax lama filaan ay ku noqotay inaan ubadkaygii kafaalo qaado inaan waalidkay wax u taro inaan anigu noqdo qofka mas-uuliyadda oo dhan qaaday kadib saa markaan u waday waxaan dhameeyay jaamacaddii markaan dhameeyay waxaan u baxay dalka dibadiisa reerkaygii waan kafaalo qaaday guri baan u dhisay waxaan noqday qof horta reerkoodii ka soo baxday markaan jaamacaddii dibadda tegay master baan soo diyaariyey dalka markaan ku soo noqdayna waxaan noqday qof xil ka haysta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland xilka aan ka qabtay muddo aan waday maxay hayday tababar ama seminar oo kale ayaan u baxay bay tiri tuulooyin ka mid ah tuulooyinka Soomaaliland ayaan u baxay bay tiri tuulooyin ka mid ah tuulooyinka Soomaaliland marka waxa jirtay bay tiri inaan aan isku galaas ahaan jirnay oo igu tiri isla noloshayadaas oo kale ay haysatay isku galaas baan ahay waxay tiri noloshaas ay haysatay heblaayo waxaan ku dhahay anigaba taas ay haysatee aynu wada samirno aynu wada dadaalno inantii waxbarashadii way ka hadhay sidii markay kaga tagtay ayaa waxa dhacday maalin iyadoo seminaarkeedii ku jirta ayay noqotayba dadkii ay iyadu u gashay seminaarkii wuxuu soo tiraysay dad ay يعني gabadh aanay filanin baa kaga soo baxday kadib waxa dhacday inaan gabadhii aan anigu ku raw waxbaan ku qabanay garabkaagan taaganahay laakiin wax aan ku sameey garanaaye bal meeshaan ka shaqeeyo masaxaadeeda noqo anigu maanta waxaan haybay tiri qof loo shaqeeyo shaqaysata wax barta waxna barata bay igu tiri saaxiibadayna waxay tahay qof ii masaxa meesha wax kale waan u qaban kari waay ta kale igu dhalisayna barnaamijka qabto waxa weeyaan hooyooyinkan maanta waxa ka shaqeeyaan shaqooyin adag walow ay shaqadu sharaf tahay oo dhididkaaga xalaali uu yahay waxa ugu macaan nolosha qabsato hadii ay hooyooyinkan shaqada adag ku jiraan oo ragii mas'uuliyadoodii dayaceen waxa dhici karta inay hooyadii habeen iyo maalin shaqayso ubadkeedii xilli alaaliyo xilli ay waraysato aanay haysan inay ubadkeedii ay cadeeda u fadhiday inuu wax bartay inaan wax baran aanay kala garanayn inuu buuq qaato iyo inuu maxay heeday kartoon qaato aanay kala garanayn xilligu soo hoyda haduu iraahdo hooy waxaan ka yimid kubadda iyo hooy waxaan ka yimid iskuulka iyadu wuxuu ku iraahdo bay qaadanaysaa haduu u soo qoro xataa khuraafaad waxay garanaysaa in wax la qoro dhibtaas hooyooyinkan haysata haday tahay dhinacii shaqada iyo haday tahay dhinacii ubadkii ay la xidhiidhiyeen taas ugu wacan tahay aqoon daradu sidoo kale waxay ugu dhaliyeen barnaamijkan qabto waxaan arkay xafiis kaste dhakhtar kaste meel kasto horumar laga gaaray inay haween joogaan haddana haweenkaasi aanu hadafkooga iyo hididiiladooda meel gaarsiisnayn ay tahay nin baan guursanaya baritoole maxaa wax ka baranaya waxyaabahaas horta igu dhaliyay inaan abuuro barnaamijkan كل إنا وحبرتي إنا وحبرن سكميد معها وهوي المهذا اللي حسابتمي كرتا وهوي كل جهة وحكا قبسن كرتا وهوي أنا عندكم يسنينين علم جنا وحوي أن تيحا
ama nal adoo tusaalahaan meel mugdiyo ku jira nal iyo faynuus shidanaysa weeyaan inta haddaan kaga baxo walow waqtigu iska gaaban yahay waxaan u mahad celinayaa cid kastoo igala qayb gashay qabanqaabada igu garab siisay inaan maanta barnaamijkan caawa isugu kin yeedho barnaamijkana aan qabano kana wada faa'iidaysano dhageystana aan anigu caawa ka ahay waxaan u mahad celinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay qabanqaabada hadday tahay qurxinta hadday tahay boorka hadday tahay sticker sidoo kale cid kastoo igu garab siisay hadday tahay dhaqaale oo ugu horeyso Suleekha iyo my team colleagues wada garanayaan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa idinka la'aantiin oonan anigu waxba ahayn haddaan 9 fikradood hayan waaye ciidan u soo jeediyo de waxay mushkiladeedii lahayd sidoo kale idinkana aad baan idinku mahad celinayaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa cameramanka horteena jooga waxaan barnaamijka markii hore waxaan u soo diyaariyay inaan si qodob ahaan uga jawaabo khudbad ahaan loo soo jeediyo sida in uu qofba intuu note ka soo diyaarsado uu jeediyo dad badan marka la tashaday uu ka mid yahay hal abuur qarayare ay ka mid tahay ama aadan waxa la ila gorfeeyay in qodobadan ay yihiin qodobo su'aal iyo jawaab ah maxay hayday problem iyo solution ah waxaan markaa go'aansaday inaan barnaamijkan ka dhigo barnaamij laga doodo ama la falanqeeyo oo qofka maxay hayday inanta ama inanka waxa ka dhex guuxaya aynu ka jaahil saarno anigoo ah inan dhalinyaro oo ku jirta hayaankeeda nololeed iyo keedii waxbarashada inaan aniga laftigaygu wax badan faa'iido sidoo kale waxa garab igu siiyay arinta maanta haldoorka aan dhageystayaasha u nahay igalana qaatay iguna dhiirigeliyay hadalka waan dheereeyay baan filayaa assalaamu calaykum baan idin leeyahay waxaan isku ognahay inaynu si fiican isu dhageysano haweenkuna qof aan adiga ahayn gaar ahaan haween haddaad adigu tahay qof bilaadan ilaahay dhammaystiray maaha inay qof bilaadan noloshaada uga hadho marka anigu waxay igu dhaliyay maadaama tiin qaybiga mida oo magaca haweenina sidata inaynu mar walba rajadeedii iyo hadafkeena aynu ka dhigno mid sareeya ragga aynu ku yaacayna ama waxbarashada uga haraynaana waa kuwa halbuulahayna jaraya marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aynu si fiican isku dhageysano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته aad baad runtii u mahadsantihiin inkastoo aanan ma jeclin inaan ragga ka aga hadlo laakiin waxaan jecelahay inaan ka sheekeeyo in badan ragga laakiin haddana dantun bay igu qasbaysaa caawa mawduuceenan caawa quruxda badan leh ayay noo soo agaasintay inanteena samsam ilaahay raaliha ka noqdo waxaan doonaynaa inaan kaga wada hadalno horumarka haweenka iyadoo ay saa tahay haddana waxaan jeclaystay inaan title kasii dhex qaadan karo ah saameyn intee leeg bay ku leeyihiin dumarku horumarka ragga waan jecelahay ragga inaan ka hadlo haddana ma hor istaagi aqaano laakiin bal haddana waan eegi so ka hor islaamkii diintu aad bay ka hor islaamkii dumarka aad baa loo dhigiri jiray waa la aasi jiray iyagoo nool baa la aasi jiray markay diinteena quruxda badan leh ay timi dumarkeena sharaf iyo kaalin iyo horumar bay siisay anigu ma garanay hay'adihiina waxay xuquuqda raadinayaan iyo maxay baa raadinaynaa xuquuqda ilaahay bay noo dhammaystiray rasuulkeena noo dhammaystiray iyadoo ay saa tahay haddana xadiiskii rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh ba wuxuu inagu leeyahay 3 goor ba haweenka uu inagu sharfay oo welibana janno loogu bushaareeyay ninkii u sameeya inuu janno gelayo mar waxay ahayd Mucaawiya ayaa wuxuu yimi rasuulka wuxuu ku yiri rasuul Allah waxaan doonayaa inaan maanta dagaalka u baxo saas baan kuugu soo sheegay magaasii ku Mucaawiya hooyo ma nooshahay magaasii ku haa way nooshahay magaasii ku hooyo u noqo hooyo cagaheeda hoosteeda jannadeedii ahaatee xadiis kale wuxuu ahaa
rasuulku wuxuu yidhi aabbihii koriya 3 hablood hadda eega 3 hablood buu koriyey amba 2 hablood oo si fiican u koriya diintooda dhaqankooda noloshooda wax kasta oo dhameystira ay diintu base ka tahay muxuu galayaa jannadu galayaa mid kalena waxay ahayd rasuulku salawaatu rabbi wa salaamu calayhi wuxuu yidhi guurku waa nisfidiin guursada markaad guursataan dumarkiina ilaahay uga cabsada janna idin bishaara ahe marka alxamdulillah ilaahay bayna sharfay dumar ahaan iguna sharfay walibna rag ku idhi sameeya jannad helaysaane intaa kadib saameyn intee leg ayay ku leeyihiin horumarka ragga dumarku 3 qaybood ka hor cilaaqada iyo zawaajka iyo tarbiyada awlaada saddexdaaba waxaan ku leenahay dumar ahaan horumar baynu ku leenahay ragga aynu horseedi karayno waxaynu ku leenahay ka hor cilaaqada hadii ilaahay qof dhowrsan ka dhigay oo toosan saaxiibkaaga yarad cilaaqada la leedahay waxaad ku hanuunin kartaa dariiqa toosan adigoo haddaad salaada u kicinaysid haddaad diintiisa haddaan waxba ka garanahayn aad u dhammaystiraysid aad odhanaysid sidan ma ahayd diinteenuye sidan bay tiri war kaale waxaan eeg haddaad article yaro qurux badan aad u diraysid odhanaysid sidan baynu sameynaynaa waxaan baa la horumar lagu gaadhay war bal kaale leeg jacaylkii waxaas ha dambeeye meel bay leedahay inta ka hor guurka waad ku caawin karaysaa oo waynu ku dhiirigelin karaynaa haddii laakiin aan iska bilowno haasaawo nooc kala waxyaabo kale oo aan ina gaarsiinahayn meel amba horumarkeena haday ahaato iyo shakhsiyadda isaga laftiisa horumar ma gaarsiin karayno waayo isagu marka maanta uu la dhex tago inamo wuxuu odhanayaa wallaahi saaxiibadii saas bay igu tidhi oo waxaas baabay lahayd samee oo maasha allah u fiican tahay xitaa wax yaro wanaaga uu sameeyo ayuu kugu xasuusan karayaa waa ka hor guurkii ma arkaysaa kadib guurkii baa imi guurkii markuu imi dawaadiga nin qurux badan kaga soo saaray waa kan meel kasta uu taagan yahay maasha allah waa kan la isku qabsanay hablihii oo dhan bay leeyihiin allah ka sheekay in buu qurux batay موضوع waxaan jecelahay inuu dumar u nahaado laakiin haddana waan iska xamilina iska daaya marka ay saa tahay haddana waadigan haduu maanta lecture jeedinayo haduu lecturer yahay iyo hadaanu ahayn iyo haduu meel wax ka soo jeedinayo iyo haduu horumar shaqadiisa ka gaarsiinayo waadigan ku soo dhiirigelinaya isteelka hagaaji war kaale wax si cun energy qaado war waxaan samee kan samee waadigan ku arin markuu public u soo baxo oo dadkii dhex imaado waa kan quruxda badan leh ee si fiican u soo jeedinaya wax ee la dhageysanayo ee laga dambeenayo ilan gabadh baa ka dambeysay keligii maaha noloshoodii iyagoo sidaa u qurux badsaday oo nolol qurux badan ku nool yihiin oo markii lamaanaha yihiin waxa imanaysa awlaad baa meesha imanaysa haye awlaadisay u tarbiyadeen karayaan hooyada wanaagsan aqoonta leh iyo haddaanay aqoon lahaynba alxamdulillah aniga hooyo iyadoon aqoon lahayn bay aabba nolol wadaageen haddana maanta 6 qof oo master degree aan guriga kula noolnahay ilaahay baa mahad iskale waxaas waxa weeyaan hooyadu haday ku bushkareynayso qofkii leedahay waar ka aday doonta aqoon yaaleen lahaanin laakiin haday odhanayso waar bax waar san samee waar waxaan samee waar kan samee inuu qofku horumar gaari doonaa wadadeenan eegayna way istaagaynaa way meel ban maraynaa waxa la odhanay waxaan bilaa edebsanayaa dhalay taasna dhaliishu kuma imanayaan ninku uu shaqo tagaya uu baxaya uu soo samee waxay cunayeen yoomiyaadkoodii buu u baxaya laakiin waa maxay dhaliishaas oo waxay ka imanaysaa waa hooyada soo hooyadii haday awlaadii tartan la sameynayso aqoon yaanay lahaanin macal haday leedahayna maasha allah kaba si fiican labadaba haday hooyadii la tartamayso ay oranayso war buugan akhri war kaalay ay arkayaan hooyadii iyo aabbahiyo isku duuban oo qiyaam leelkii u kacaya oo sunnayaashii tukanaya
oo wax kasta isku dhiirigelinaya oo arkayaan ilmihii yaraa aabihii oo loo hagaajinayo shaarkii isna inantooda yar buu hagaajinayaa subaxii markuu sii baxayo laakiin marka la arko iyadoo kabla iska sii daba tuurayo dee kabtii buu inantooda yaryadna ka sii daba tuuraya marka anigoon kusii dheeraanahayn horumarku ragga kaalimaha ragga aynugu jirno dee cidna kama qarsoona meel fiican baynu kaga jirnaa iyaguna way noo og yihiin anigu ma garanayo xuquuqdan iyo waxaan iraadinayaan dumarku rag way noo og yihiin haddii loo soo jeedsanayo way noo og yihiin haddii loo dhibirsanaanayo ninku horumar gaadhaa dumar unbaa ka dambeeya kelmad carabiya waxay ahayd kullu rajulin cadiim waraa imraa cadiima laakiin dumarku kelmadda rag way farax tigelisaa qaar waa kuwa caqliga saaxiibka u ah kuwa qaar kalena way kama farxiso laakiin dumarku lafdhabar baynu nahay ragga haddaynu kaalin qabanayno haddaynu dhabar gelayno wax kasta haddaynu qabanayno kaalin weyn baynu u jirnaay hablayna ku aynu isdhisno asalaamu calaykum waa beer ka mid ah beeraha laga beero ubadka ama waa beer ka mid ah beeraha laga soo saaro ubadka kuwaasoo qurux badnaada ama fool xumaada yacni quruxdan iyo fool xumadan maaha yacni akhlaaq xumaada ama edab wanaagsanaada weeye hooyadu waa ka ilmaha yar ka odhanaysa ama sidan waxa weeye wax ka bedel oo noloshaada hagaaji ama waa tu ka odhanaysa waxa weeye aan warba ka hayn laakiin anigu waxaan aaminsanahay quruxda iyo edab fiicnidu halkay ka timaadaa waa hooyada geedka waxaa quruxda iyo macnaha u sameeyaa waa caleemaha waa hadhka iyo midhaha uu geedkaasi bixiyo sida ay geedkaba midhaha iyo caleemaha quruxda ugu yeelayaan ayay dumarkuna nolosheena qurux iyo milgo iyo maamuus ugu yeelaan waxay idin leeyahay abaalkiina ma soo gudi karnee rabbiga raxmaankii haydin maamuuso oo haydin milgeeyo kol walba iyo koob kasta haweenku waa halka laga barto balfiiri waa halka laga barto dareenka jacaylka deganaanta naxariista dulqaadka iyo dabacsanaanta way dareemi kartaa hooyadaha markay kuu naxariisan jirtay markay dareen jacayl kuu muujin jirtay halkaad ka soo barateen maanta jacaylka iyo dareenka iyo naxariista aad kala timiday marka tarabbi laga yimaado waa hooyada waxaa laga yaabaa aabbo iyo hooyo wada socda hadday maanta ku yara dhaleen kaxeeyaan oo halkaa la maraan oo ka yara kufo waxaa laga yaabaa inuu aabbo ku idhaahdo aruuxa nacaaski muxuu kaca laakiin hooyadu alla hooybo bay odhanaysaa way damqanaysaa way dareemi kartaa dareenka ay muujinayso waa hadiyadda ugu qaalisan ee rabbiga raxmaankiina siiyey dumarku waana rajada iyo hamiga koowaad ee aynu leenahay haddaynu ragnahay quruxda iyo iftiinkan bilan iyo midabkeena quruxda badanna waa kuwii ka dambeeyey maansadan bal markaan ka baxo hal sheeko ayaynu kusoo gabagabayn doonaa waxa weeye maansadan magaceedu waxaa la idhaahdaa dumar waa hankeen waxayna ku bilaabmaysaa haddaan hooyo kula jirin ama hooda kula dhalan noloshuba habaasiyo hataaq meedhan weeyaan hirka nolosha ee sare maad haybsateenoo hagardaamo iyo ciil hooy aan iftiin jirin ayuunbaad ka hoganayd dumar waa hankeeniyo higsigeenna noloshee hooyo wacan allow dheer mar kaleeto hoodiyo habadeen macaaniyo waa hooy iftiin badan oo joogto hanashadu gurigii haweenihii waa hooy qurxoonoo lagu soo hirtaayo loo wada hanweyn yahay haweeno waxaa tihiin ifiyaa hankeeniyo higsigii raggoo idil mar kaleeto hooyiyo waxaa tihiin hayaankii darajada haweennimo waa haybadeenoo hogaweeye noloshee weligaa ha daayicin haweenkeenan badan ee haybadooda qurux tahay idinkaa haween bilan darajeeyey oo hagay haliyada dalkeeniyo hanadkiyo hacooyada way dareemi kartaa ninka doqonkaana hooyadu fariid bay ka dhigtaa oo walaashu iyo hooyadu odhan maysa inankaygu waa doqon xataa hadduu ugu doqonsay waxay odhanaysaa inankaygu waa fariid idinkaa
hanad idinkaa haween balandareejeeyey oo hageeye haliyada dalkeen iyo hanadkii hawooyada dumar waa hankeen iyo hamigeenna oo qura hadid weeye eeboo hanashadu la daris tahay marna hooyadeen iyo hooy weeye qurux badan hadafkeena noloshana iyagaa hogaansho kugu haga dariiq saxa qurux waa haweenkeen waa hobol daruuro loo wada hamuun qabo hawraarta maansado hadal bay ku leedahay hablaheena bilanow weligiina ha hoormina hoosaynta noloshana hamigiina iyo noqon intaasaan kusoo gabagabeynayaa maasadaas intaasay inoogu abayaa dhanka midig oo su-aasha koobaad falanqaynteeda ra'yigeeda ka dhiiban doonto su-aasha koobaad baynu wareejin qof walowba ka note garayso wixii kaaga soo baxana gadaal haynoo ahaatay inaynu weydiimaha weydiino waxaan ka horeysiinay kaanur cabdiraxmaan su-aasha waxaa odhanaysaa markaa doodeenna ama falanqaynteena ka bilaabmaysaa waxa weeye farqi inteen leg baa u dhexaysa gabadha markay wax barato iyo markaana waxba baran waxaan haysataa waqti aad u kooban 2 daqiiqo aan ka badnayn su-aasha dul istaag ra'yigaaga barakaatu ugu horan ilaahay baa mahad iska leyn dheeriindho wax kaakaya mar labaad waxaan u mahadnaqayaa marti sharafta qaayaha iyo qiimaha iyo qadarinta mudan kuwaasoo waqtigooda noo soo huray siday u arki lahaayeen madashan haddii aan isku dayo jawaabteeda su-aasha sidaan wada ogsoonahay bulshadu waxay ka kooban tahay rag iyo dumar guud ahaan sida awoodeed iyadoo ay saas tahay haddana iskarabsiga iyo iskacansiinta iyo dadaalada ay sameeyaan ayuu ku iman karaya horumarkooda ayadoo ay taasi jirto oo aynu wada ogsoonahay haddana mowduuceenu wuxuu daaran yahay horumarinta haweenka markaas dhanka horumarinta haweenka ayaan jaleecaynaa iyadoo ay saas tahay inagu waxaan nahay haween Soomaaliyeed marka anigu haween Soomaaliyeed kelmadaas baan ku halqabsanayaa haddii aan idinku badiyo haween Soomaaliyeed baan ka mid ahay hafee faro qaata haweenka Soomaaliyeed iyagoo xilkooda alla saaray gudanaya waajibaadkooda ka soo baxaya haddana waxaan oran karnaa horumarinta bulshada ama horumarinta wadankooda ubadkooda sawjkooda intaba waxa kaga fiican ragga haweenka taas oo aan targetka saaraynin haweenka oo aan oranaynin raguna kuma fiicna laakiin se wada ogsoonahay lafdhabarka bulshadu waa haweenka wadankeena haddii 20 sano u dambeeyay haddeen eegno horumarka bulshada haddii noqoto dhaqaale iyo wax walba waxa ka qayb qaatay dumarka waxaan oran karnaa iyaga kaga faradhuuba ragga waxaad arki karaysaa tusaale ahaan hooyo subaxdii kala haysa ubadkeeda kala haysa wuxuu soo qabanaysa wax soo saarna leh gelinka dambana waxaad arkaysaa hooyo barbaarinaysa ubadkeedii oo aynan oran kareynin hooyada suuqa tagaysa amaba waxaan shaqaysanaysa amaba wax soo qabanaysa waxay dayacday xilkii saarnaa ee sawjkeeda iyo ubadkeeda inagoon taas oranaynin haddana lafdhabar weyn ayay ka leeyihiin iyo kaalin weyn oo mugle oo aynan caawa ku koobi kareynin tix qoraal iyo tiraabtoona inta midna aynaan ku koobeynin sad wada ogsoontihiin gabdhaha wax bartay haddii aan su-aasheeda u soo noqdo sad wada ogsoontihiin gabdhaha wax bartay waa key of the society gabadh wax baratay ugu horeyn waxa kow ay ka bilaabaysaa horumarinta nafteeda ayada lafteedaas ka bilaabaysa waxay leedahay target waxay leedahay plan qorshe han himilo ididilo iyo meel ay u socoto sidoo kale waxay sameynaysaa ubad waxay soo saaraysaa tacliin leh oo ka dhisan imika ilmaheeda marka uu tago meel amaba wax soo baranayo kale wixii way kaga daba tagaysaa waxay oranaysaa maanta maxaa soo baratay de ma siri karayo ma oran karayo waxaasaan soo dhigtay oo waayo wixii way garanaysaa sidoo kale waxay wax ka qaadanaysaa horumarinta sawjkeeda ayadoo wax walba la hiigsanaysa ma oran karayo gabadha wax baratay ubadkeeda ma daryeelayso sawjkeeda sidoo kale sababta hooyooyinkeen
inta badan waxumay soo baran haddana weynaga qurux iyo qiimo iyo waxbarasho iyo waxaan maanta ku taaganahayba ayaga inagala dambeeyay laakiinse waxaan oranayaa gabadha wax baratay nafteeda iyo nafafka kaleba way horumarinaysaa takalena waxaan kula dhiirigelinayaa adana sidoo kale inay barato qofka aan oranaya maxay heetay hablaha kale ma oran karayo waxuma bartaan laakiin qofka waxbarashadiisu waxay ku xiran tahay inuu asagu isdhiirigeliyo haddii aanu qofkani han lahayn oo aanu higsi lahayn oo aanu asagu isdireynin waxba ma soo saari karin waxbana ma baran karin taas waxay ku xiran tahay oran karaya qofka maasan tahay waxaan dhiibi doonaa Xamse Turaale isagana ra'yi guud ka bixin doona isla su'aasha laftigeedana warcalinteeda inuu uga fadhino wana in aan aad iyo aad u jecelahay run ahaantii dhiirigelintiisa iyo barnaamijyada uu qabto caawina chance fiican u helay Xamse markuu soo dhawow mar labaadkana barnaamijkeena iyo qodobkaaga ka bixiyo iyo qofayna oran karayno waa qof wax qoran waxna akhriya kala duwanaanshuhu wuxuu yahay midi wuxuu garanayaa oo magaranaysa akhri karaya wixii loo dhigay midna waxa uu fudud macnaheedu maaha qofku uu nigiin jaabi inay maxamed cali salaatu wasalaam oo garanaysa inuu ha qof waxna qorin waxna akhriya haddana yani inuu ahaa nabiyada marka la eegayo dan yani nabiga ugu qiimaha badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo sheegay uu leeyahay innaka lacalaa khuluqin cadiim haddaba taa marka ka nimaano inta badan wax lagu soo caraar qabsadaa oo la yidhahdaa hooyooyinkee waxba may soo baranay si fiican bay inoo koriyeen dhanka marka la isbarbardhigayo dumarkan dambe iyo aabayaashan dambe inta badan aabayaasha hore iyo hooyooyinka hore way ka liitaan oo way yani ka tabariyar yihiin marka la eegayo marka tan waxay la tacalluqdaa un aqoon marka laga hadlayo aan usoo gudbo aan usoo dhandariya dhinacii su-aashayda waxa weeyaan aqoonta gabadha aqoonta leh iyo gabadha aqoonta lahayni aad bay u kala duwan yihiin anigu odhan maayo gabadha aqoonta leh kuma sifeynayta waxna qori karta waxna akhri karta laakiin waxaan ku sifeynayaa waa gabadha garanaysa ilaahay subxaana watacaala iyo waajibkii uu kusoo dejiyey oo ah diinta qodobka labaad wuxuu yahay inay si fiican u garanayso dhaqankeyga iyo deegaankeega iyo qaabkii ay ula falgeli lahayd dadkay ku dhex nooshahay tusaalahaan kale hooyooyinkeedu waad garanaysaa si inoo soo koriyada haddana waxna ma kori jirin waxna ma akhri jirin ma ha jaahilin laakiin waa aqoon-yahan waxay garanayaan waa deegaanka iyo waxa weeyaan dhaqankiisa deegaanka iyo aqoontiisa iyo qaabkay nagu barbaarin lahayn ay nagu diyaarin lahayn mustaqbal qurux badan marka difference u dhexeeya wuxuu noqonayaa un gabadha aqoonta leh saamaynta yeelata waa saameyn aada u weyn oo ay ugu yar tahay inay soo saarto jiil carabisan sideenoo kale jiil qurux badan jiil garanaya waxay doonayaan iyo waxay diidayaan jiil ilaahay subxaana watacaala diintiisa u gargaaraya iyo jiil garanaya waxa ilaahay subxaana watacaala ay u abuuray gabadhan aqoonta lahayn أنا حتى واحد بدر يا واحد وين كمان قرني إله سبحانه وتعالى شرعي يسود شيء واحد وين كمان قرني إنه لا تقدر ديجانك because واحد شهر الله فرا بدل وقلت الماسترز degree ستايل PhD هذا اللي أنا أقول لك تاني إني ديجانك فهمنا أقول لك تاني يسود شو الله سبحانه وتعالى كما سفير يدوم كل كلية لكن دمناتن أبيها وين ما لكن ما كسر شيء يعني هنسبر بدري البدل بكا هاتي أصور وليه difference كود حياة كل دون شيء حياة كلامية قبلنا waxay garanaysaa roolka bulshada ka qaadanayso diin ahaan dhaqan ahaan iyo aqoon ahaanba gabadhna taamina ma garanayso aad iyo aad ma santay farwaan idin sheego waxay noqonaysaa insha Allah horay ururinta guud inuu qof walbaaba ereygiisa u dhiibto inaga waliba aad u soo ururinayna waqtigu iska kooban yahay waxaan u dhiibi doonaa Suleekha oo si guud ereygan uga oran doonta su'aasha laftigeedana warcalinteeda isku day doonta insha Allah ta'ala ku soo dhaw Suleekha hadii waqtiga awgeed nagu yar hadii aan gudagulo su'aashayda runtii fikradan ka aaminsanahay anigoo xataa haweenahan u eegaya su'aashayda inanta aqoonta leh iyo inanta aan aqoonta lahayn farqiga u dhaxeeya waxna oran karaa horta inanta marka aqoon leedahay inanta hadday aqoon leedahay aqoonta leedahay waa bulsho wax baratay hadday inantu aqoon leedahay waa bulsho wax baratay soo waxaan aaminsanahay inanta aqoonta leh inay wax badan kala taqaano inay wax badan og tahay مثلا imika kale hadii aniga ahaan iska soo qaado anigu maadaama dhaqtarad ahay ama dhakhtar aan ahay runtii waxaan aaminsanahay ilmahaygu haduu xanuunsado dawadu u baahan yahay baan ayaan ogahay soo dawadu u baahan yahay anigoo og just waan soo qaadaya qof kale ma adeegsanayo gabadha aan aqoonta lahayn halka inayadu ka garaneen adeegsanayso qof dhigtaara ama qof inuu doono waxaan aaminsanahay inanta aan aqoonta lahayn inay in badan runtii wax badan ay
ka lunsan tahay wax badan ayna garanayn halka inanta aqoonta leh wax ka garanayso mar walba waxa la yiraahdaa inanta markay aqoonta leedahay waxay aqoontaasi ka muuqataa qoyskeeda waalidiinteeda iyo inta ku hareeraysan ee bulshadeeda mar walba markaas runtii anigu sidaan aaminsanahay aqoonta inanta leh waxay in badan ka madax dheer tahay amaba ka waaya aragnimo badan tahay amaba ay ka qiimo badan tahay inanta aan waxba baran soo ma oran karno inanta markayna aqoon lahayn waxba ma qaban karto laakiin waxaan aaminsanahay inay wax qaban karto ayaduba laakiin haddana iyadoo sidaa tahay waxaan ka aaminsanahay markay haweenku ama inantu ay aqoon leedahay inay bulshadeeda dadkeeda iyo dalkeedaba wax u qaban karto marka laga yimaado qoyskeeda marka laga yimaado faamiligeeda marka laga yimaado bulshada kale qarankeeda xataa waxna aaminsanahay inay wax u qaban karto soo inanta aan waxba aqoonin halka ku kooban tahay gurigeeda iyo shaqada guriga oo kaliya ta laakiin xataa inanta aqoonta leh anigoo hadalkayga soo gaabnay soo reegal noqda inanta aqoonta leh xataa waxaan aaminsanahay odaygeeda ama xaajigeeda markuu xanuunsado in ayadu banaanka u bixi karto soona shaqayn karto waxna u qaban karto soo mar walba waxaan ku dhiirigelinayaa haweenka Soomaaliland meel walba joogaan caqabad idinkuma aha inaad wax barataan laakiin waxa caqabad idinku ah inaad mar walba gurigiina fadhidaan soo waxaan garan lahaa inta ay ka badan baa waxaan jeclaan lahaa inaad wax barataan oo mar walba horumar aad gaadhaan kullu dhamaantiin horumar waan gaari karnaa yaanan hal marna ka niyo jaban inaan horumar gaarno dhamaantiin horumar waan gaari karnaa waxaan baran karnaa laakiin haddaan iska dhaadhicino jasbana la guursanaya oo guriga baan fadhisanaa ma fadhisanaysid runtii wax walba waad qaban kartaa soo waxaan idin leeyahay ma jeclin waqtiga nagu yar inaan hadalka ku dheeraado wax waan baran karnaa waxaan barano maadaama ka dalaal badan nahay inanta aan waxba baran kolle marka meel soo wada istaagaan inanta wax baratay inanta aan waxba baranin dhinac walba adigoo ka eegaya waxay ka qurux badan tahay inanta wax barato waxay ka qurux badan tahay inanta aan waxba baran soo mar walba waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad wax barataan aan idinku niyadjabin waxbarashada qof kasta waxa rajeeyay inuu ka nowtgaraystay saddexda qof ee hore hadlay ereyadii mugtay miisaanka lahaayay inala wadaageen macallin Axmed Obsiya aduguna saasi lamid ah isla su'aasha ahayd farqiga u dhaxeeya qofka wax barta ama gabadha wax baratay gabadha aan waxba baran ee nala wadaagi doonta ra'yigaaga dhalinyaradan baanalka wadanahay ee milgaha iyo maamuuska mudan waxaan mar saddexaad bogaadinayaa marti sharaftan qiimaha iyo qaayaha bale kulli intii u badnayd waa laga soo jawaabaan filayaa su'aashu waxay ahayd waa maxay farqiga u dhaxeeya gabadha wax barata iyo gabadha aan wax baran inta aanan gudagelin qodobadayda gabadha wax barata waxaan ku soo ururin lahaa maansada hablaha geeska ee lahaa Allah barakeeyo cimriga aqliga oo barakeeyo raawin xidig hawada lawatana habeen laguma gaadheen hubka laguma tuureen cirka hirarka muuqdo ruuxaad hagaysiyo u shamidaad u haysaa hilin toosan weligii ka habaabi maaye hooyay adoomuhu halkay maanta joogaan adiga horseedwa oo ay kulay beedadka gaabani waxay makhraati ka kacayaan hooyada aqoonta leh inay badan ka duwan tahay hooyada aan aqoonta lahayn inkastoo inaan aqoonta aan ku raacsanahay ra'yiga walaalkii Xamse oo ah inaanay gabadhu noqon inaan ku kala saari karin qofka waxna akhriyo waxna qora ay hooyadu tahay ama ay gabadha wax barata tahay gabadha ugu horreyn diinteeda ku faraadaytay dhaqankeegana oo la mid yahay ama dhaqankeega ku faraadayta gabadha dareensan maxaad dhaqan iyo hiddo u leedahay maxaad soo jireen u leedahay hugaagu muxuu yahay oo soo jireenkaaga aad kala hadhaysaa ee aanay gabadhu noqon inta aynu qalin iyo buug ku kala saari karno waxaan kolka qodobo kooban ka dul istaagi doonaa bal hooyada wax baratay waxay kaga duwan tahay hooyada aan waxba baran inagoo kolka hore baysahan uga dhigayna diinta oo aasaaska nolosha mar labaad dhaqanka oo ah waxay noo soo raaca qof kasta wuxuu ku faanaa waa farciisa iyo dhaqankiisa iyo intuu ka aaminsan yahay dhaqankiisa hore waa dareemi kartaa hooyo aqoontii horena wax ka haysa tan maanta xadaaradana la jaan qaaday ilmaheegu inuu ka duwanaan karo in fara badan hooyada aan labadaaba isla helin ama magaalo qura ku kooban ama miyi qura ku kooban haddaan isira barbar dhigo aqoon ahaan sababtaynaan u odhan karin qalinka iyo buugga quraan ku kala saari karnaa waxaa ka mid ah Allah barakeeyo nin macallin ahaa ayaa wuxuu iga sheekeeyay hooyadii wuxuu yiri hooyaday aqoon ma lahayn laba nin baan walaalaa anigii inaan kala walaal ahayn aabahay waxa waqtiyadii Sacuudiga uu loo dhoofi jiray dadana wuxuu yiri hooyaday marka aabahay warqad soo diro
inta muraayad soo xidhato ayay odhan jirtay akhriya habeenkii markaan guriga nimaadno waxay hooyadiin odhan jirtay dedejiya casharka soo dhigateen qofka ku yara istaaga carabigii ama ku yara istaaga soomaaligii ama somehow ay wax ka qaldanayeen kan kale odhan jirtay xisaabta maray ka shaqeeya oo eeg wariyaa deedana markuu eeguudha waa qalad aroortii tegi jirtay iskuulka waxay ku odhan jirtay ninkan waxba ma dadaal badno wuxuu yidhi maalintan form 4 ka baxnay ayaan dareemay inaan hooyaday aqoon lahayn laakiin ilaa ma primary ilaa ma secondary waxaan ogaaday waxaan haysanay inaan hooyaday aqoon lahayn waayo waxay noola dhaqmi jirtay sidii qof aqoon leh wuxuu yidhi marka warqad la soo diro waryaa ma hebel akhri ayay odhan jirtay habeenkii akhriska wata nagu tijaabinaysa saan aqoonyahan ugu haysanay maalintan form 4 ka baxaynay ayuu aabba warqad noo soo diray imtixaankii weli la soo dhejin deetana maalintaasay noo yeedhay maalintaasay caddaysay buu yidhi inayna hooyaday aqoon lahayn oo tiri maanta waa maalintaad awooddiina ku meel mari lahaydeen way soo dhammaatay intayda halkaa waxaan ka dareemayna hooyadaasi waa aqoon may lahayn miyii bay joogtay miyii bay ku soo kortay intii dambe magaalada soo gashay haddana waxay isticmaalaysaa aragti halkaa aragti labadan soo geliye waqtigii hore la yasi jiray ama hoos loo dhigi jiray dumar waxaa la yidhi dhaqanka miyiga markaynu ku yaran noqono hooyadu ama dumarka inta badan lama xushmayn jiray tusaale ahaan oo kale nin baa la soo martiyayaa deedna gurigii baa xoolo loogu qalayaa waa la mulgeynayaa waa la maamuusayaa si qurux badan baa ayaa loogu hagar baxaya haddana waxaa la yidhi markay martidaasi tagto meeshii ay ku socotay deegaankii waxay odhanaysaa gurigii hebel baanu tagnay hadda hebelkaasi isagu kii soo kariyey cuntada mu ahayn kii maxaa idhahda shaqada inta u batan qabtay mu ahayn hooye ahayd deetana waxaa la yidhi dumar ay ka maqan yihiin odayaasha somehow sabab ay uga maqnaayeen ma aqaano ayaa la soo martiyey deetana waxay ku yidhaahdeen raggii ma joogaan markaa raggii ma joogaan haddii la idhaa waana dhaafi macneedu deetana way dhaafi waayeen waxay idhi waan daalanahay halkaa cawl noo dhiga aan iska seexanay hablihii baa dib iskugu noqday dumarkii waxay yidhaahdeen nimanka halkaa ma seexin karna cawl qatanaan aynu isku noqon riyo quray dhaqadeen baa la idho riyihii bay dib ugu noqdeen bilaa biyay ahaayeen ragna gurigii ma joogo deetana ridii bay u saleen markay ridii u saleen baa ayaa maxaa idhahdaye ayaa la yidhi haddaba yaa u geyn waa la isku tuurtuuray inan waxaa la yidhi aad ugu yarayd oo u caqli badnayd ayaa waxaa la yidhi tidniyo anigaa u geynaya sababaynayana sababta waxaan ku dhacay deedna nimankii bay toosisay 3 sababood u sheegtay waxay tiri waanu raagno rag la'aan baa leh waa riyo oo ida la'aan baa leh waa solay oo biyo la'aan baa leh waqtigii waxay ahayd dumarka lagu soo doonan jiray hayraaca nin baa yidhi habeenkii halkaasaan gabadhaan u geer fadhiistay marka ujeeddada ma socdaa waxay tahay kuma odhan karno qoraal iyo qalin ayaan ku kala saari karnaa laakiin waxaynu ku kala saaraynaa siday hooyadu deegaanka ama aragtida goobtay wadcigay ku nooshahay say ola falgeli kartaa ubadkeegana u sarfaaf garan kartaa iyo uga saari kartaa haddaan soo yaro koobo qodobada aan odhan karo hooyada aqoonta way kaga duwan tahay hooyadan lahayn horta waa kobaca garaadka hooyo kaste oo aqoon leh ilmaheegu uu ka duwan yahay ubadka kale wax la dhiganaya waxa laga yaabaa hooyadu inay base hoose soo dhistay ilmaha carabigii diintii quraanka inta hoose soo xigtisiiso inay 3 ama 4 fadhiisay ilmaheegu halkii hooyada kale maadaama ay nolosha kale la bay hoofayso ay yaraanba laga yaabaa inay u geyso isagoo ilmahaasi dhisnay marka ugu horeyn waxay ka qayb qaadataa kobaca garaadka ilmaha ay hooyadu ka qayb qaadanaysaa aqoonta mar labaad kaalinta aabanimo waxa laga yaabaa inay hooyadu isku bixiso aad aabu shaqo badan yahay tii aabanimo iyo tii hooyanimada iyadoo aragti durugsan iyo shaqooyinka aabihii uu qabto ku dhiirigelinaysa qodobka saddexaad soo saaridda ubadifaya waxa laga yaabaa in badan ka gedisan tahay hooyada waxbaratay ubadkeegu hooyada aan waxba baran iyadoo kolkaasi iyadoo ah qofta nolosha soo martay caqabad kastoo aqoonta ka soo qabsatay ka leexinaysa ilmaheegi qodobka afraad anoo yara dedejiye waa kobaca bulshada waxay la falgelinaysaa ilmaheegu la dhaqanka milgeynta maamuusida iyo sidii ilmaheegu bulshada kale u dhex noolaan lahaa ay door ka qaadanaysaa qodobka shanaad aragti fogaan waxa laga yaabaa hooyada aqoonta leh inay in badan ilmaheega tusto meel aanay hooyada aqoonta leh hooyada bilaa aqoonta wax ka tusin inay ilmaheega wax ka tusta iyadana macquula qodobka lixaad abuuridda aragti cusub waxa laga yaabaa hadday tahay qaabka akhriska iyo hadday tahay qaabka suuca shiradiisa iyo habdhaqankiisa iyo nidaamkiisa iyo hawlihiisa waxbarashadiisa ku tabaridanayo hooyada aqoonta leh iyo hooyada aan aqoonta leh ubadkooda inaanay iyaguna iskaga mid noqon waa macquul buuxinta kaalinta saaxiibtinimo waxyaabaha muhiimka qiimaha leh waxaa ka mid a waxaa la yidhaahdaa haddii caafimaadkaagu lumo
hadday hanti kaa lunto waxba kaamay lumin hadduu caafimaadkaagu lumo wax badan may lumin laakiin dabciga la dhaqanka ummadda hadday kaa lunto noloshaadii wixii aad ku haysatay oo dhan ayaa luntay marka waxaa laga yaabaa kaalinta saaxiibtinimo inay door ka qaadato kobaca ilmaha ama meelgaadhsiinta ilmaha marka buuxinta kaalinta saaxiibtinimo ayay door ka qaadataa sidoo kale hooyada aqoonta leh waa maaraynta dhaqaalaha oo waata soomaalidu tiraahda nin kastoo weyn waxaa ka dambaysa gabadh weyn oo macnaheedu yahay nin kastoo nolosha guule macquule ka soo gaadhay dee gabadh wax baratay oo doorkiisa wax ka qaadata oo dhiiri gelisa oo laga tusaalaysa ayaa ka dambaysa qodobka ugu dambeeya waa dareen nuglaan iyo dareen bulsho inay tahay hooyo inta badan dee jiiraankeyga dadkaan aqoonta lahayn iyo dadka danyarta ah iyo wax badan ka qayb qaadan karta oo dareen nuglaan fara badan ay ka muuqato sagaalka qodob baan ku soo ururinayaa waan ku dheeraadaan filaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan iminka weydiinta labaad oo aan ka bilaabi doonaa kahanada cabdiraxmaan caqabadaha ka hor iman kara gabadha inta ay waxbarashada ku jirto iyo xaqiijinta hadafkeeda nololeed adoo toos su-aasheenu u geli doona insha allahu tacaala haddii aan toos u gudagalo jawaabteeda anigaan waqti badan qaadanayn kow caqabadaha haysta gabdhaha inay waxbartaan amaba hankooda iyo maxay ahaatay hiigsigooda nololeed ay rumeeyaan faham qaldan oo waalidiinta qaar ka haysta dhanka gabdhaha taasi ay oranayaan gabadha waxaa loogu talagalay oo kaliyaata inay qabato gurigeeda inay wax ka qabato inay shaqayso inay madbaxuun gasho inaynay wax kaleba yacni aanay wax kaleba qabanaynin gabdhihii oo maxay ahaatay iyaguna guurka ku degdega ma oran karayo gabadha guurka ku degdegta waxaa gaabanaya hankeedii iyo himiladeedii waxaa joogsamaya hadafkeedii laakiin badi markaynu eegno gabdhaheena oo iswada ogsoonahay gabadh kastaaba markay guursato waxaad moodaysaa inay ka hadhay hadafkeedii iyo nolosheediiba inta badan xataa gabdhaha waxaad arkaysaa gabadh saaxiib kula ahayd oo hadaf lahayd oo hiigsi lahayd oo nolol lahayd in maalinka markay guursato aad gabadhii xataa adiga laftarkaagu aad waayeyso ood oranayso heblaayo guurkiibaa xabsi ku xidhay oo gabadhiiba duba ma arkaysid iska daa hadaf ay rumaysee taasina caqabad bay ku leedahay ta kalena oran karaya inay caqabad ku leedahay waxa weeyaan inaan gabdhaha dhiirigelin loo sameynin inaan gabdhaha loo sameynin barnaamijyo lagu oranayo waxbaad baran kartaan waxbaad qabsan kartaan oo aynu inta badan nidhaahno gabadha waxba ma qaban karayso gabadhi waa gabadh un taasaa caqabado ku noqon karaya gabdhihii intaasaan kusoo koobaya waxaan dhexbartan kaga jirnaa barnaamijkeena falanqaynta hanka haweenka inaynu ka hadalno isla Suleekha su-aasha laftigeeda caqabadaha ka hor iman kara inantu inta ku guda jirto hayaankeeda waxbarasho iyo xaqiijinta hadafyadeeda qodob iyo laba maxaad ka tilmaami kartaa jawaabteeda u gudagalo anigoo iska soo qaadaya heerkaygii waxbarasho ama heerkaygii jaamacadeed ama jaamacadda ku jiray caqabadihii ugu waaweynaa kulley habluhu way iswada yaqaanaan aniguba haween baan ahay inan baan ahay heerkaygii jaamacadeed markii aan ku jiray caqabadihii ugu waaweynaa iga hor imanayay unbaan isleeyahay dhalinyarada kale ama hablaha kalena way ku iman kartaa caqabadaha ugu waaweyn igaga iman jirtay waxay ahayd heerkaygii jaamacadeed markaan ku jiray kolley anagu ragga waanu ka duwanahay oo haween baanu nahay gurigaanu ka shaqaynaa dhinacna hayaankeenna waxbarasho ayaanu ka wadanay runtii aniga ahaan ama Suleekha ahaan caqabadihii ugu waaweynada iga hor yimid waxay ahaayeen markii aan ku cusbaa jaamacadda waxaa jirtay rag iyo dumar in la isku imaado ama wax la wada dhigto soo prestationaa jiray su-aalaha la isweydiin jiray soo caqabadaha ugu waaweyn iga hor iman jiray waxay ahaayeen inaan prestation kusoo horjeeday jaamacadda halka yacni stageka so anigoo ka xishoonaya inamada laakiin waa mid aan maarayn karno inan ahaan marka naloo eego waan maarayn karnaa ama waan iska din karnaa ama waan daaweyn karnaa midha caqabadaha kale nagu imaadaa waxay tahay markii aan jaamacadda ka soo rawaxno kolley inamadu halkay ka marmaydhaan ay seexdaan ama suuqa u baxaan anaga runtii caqabadaha inagu haysato waxay ahayd anagoo jaamacad ka imanay raanina qodobaalka ayaa xun
okay anagoo jaamacadda ka imanayba waxaan geli jirnay ama bambaha inaanu galno ama inaan derigar karino iyadoo assignment ina sugayaan iyadoo prestation ina sugayaan caqabadaha ugu waaweyn aan oran karno oo naga hor yimid haween ahaan markay tahay jaamacadda markaan ka imanaa hawsha gurigaan qabanaa inaan ubad kala hagaajinaa dhici kartaa xaasad haddaan nahay inaa guriga dhexdiisii howlo fara badan nagaga yimaadaan so waxaasoo dhan waxaan oran karnaa haddaan haween nahay waan ku gudbi karnaa haddaan yacni u soo jeedsano ama ay dhab naga tahay waxbarashadeena caqabad kasta oo naga hor timaada waanu ka gudbi karnaa laakiin ta ugu waaweynaan anaga naga hor timaado heerka jaamacadda ama heer dugsi dhexe ha noqoto heerka dugsiga dhexe kale waxaa laga yaabaa inaad free tahay gurigooda inaad joogto maybe inaad waxba qabanin oo inaad ku shaqayso laakiin marka jaamacadda ku jirto kale waxaa laga yaabaa inaad xaas tahay inaad guriga ka shaqayso ama ugu weyn tahay so waxyaabaha ugu badan ay naga hor yimaada waxay tahay inay dhabeec naga soo gaadho dhalinyarada reer Soomaaliland markaan dugsiga waxbarashada ka imanno hadday kuwa gaadhiyo noqoto kuwa wata gaadhiyada noqoto hadday noqoto kuwa wadada socda wayna aflagadeeyaan iyada sidaa tahay haddana waxaan xooga saarnaa inaan wax barano anaga guriga hawshiisa hayna iyo anaga jaamacaddeena joognaa so caqabadahaas naga hor iman kara baan aniga aaminsanahay waxaan codsanayaa inta inoo hadhay maadaama waqtigaas inoogu isku gurayo in inaguna aynu samirno oo aynu dul qaadano xamse su'aasha waxay odhan doontaa insha Allah tacaala iminka u baahan falanqayntu kaalinta laga yahay haweenku ka jiraan horumarka ragga ama wadan ahaan haddaynu ka hadlayno kaalinta lag ay kaga jiraan iyo ragga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay isku abuuray inta aan gelin doorka haweenku ugu jiraan ragga Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay mu abuurin xaawiye aadam laba nool kama kala abuurin aadam ayuu ka abuuray yani feediisa xaawo ka abuuray tan waxay muujinaysaa heerka taagsiisan tahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay uu helisaga dhigay iyo dumarka heer Ilaahay gaarsiiyay inuu inoo sheegay inaan isku nahay huul isku nahay oo barkeen barka kale oo asturay saddex xilmidood ma soo koobaya doorka ay gabadhu halkay ugu jirto gabadhu ninka ay ugu jirto dumarku waxay ugu jiraan iyadoo labada dhinac ka yimaanaysa rag iyo dumarkaba saddex wax baan ku soo koobaya waa wehel waa walaal iyo waalid waxa ka soo bilaabaysaa waalid waa hooyada qistiga dadna wada waxa weeyaan inankii hooyo ku soo hoos karaya cid soo qarsanaysa waa hooyo iyo aabo dan hooyo waxay ugu jirtaa marka gabadhu waxay ugu jirtaa waa doorkii waalidnimada yani waa waalid oo garanayno qiimaha yani ay leedahay iyo hawsha ay leedahay qodobka labaad waxa weeyaan waa walaalnimo waxa weeyaan inantii walaalkeed uu dareemi karayna door halkay ugu jirto sidee u ilaaliso sidee nadaafadiisa uga shaqeyso sidee u jeceshahay sidaas la mid ah sidoo kale marka inta badan waxay kala nuuraan marka guriga la joogo si kala leeyahay hadda sidoo kale walaal wanaagsan yihiin dumarkuna sidaas la mid ah markana waa walaalnimo qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa waa wehel oo noqonaysa marka yani la isku guursado waxa weeye ragga markii ay samaystaan guri samaystaan halkaasina waa wehel Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sheegay waxa weeye labada qof waxay isku weeshanayaan waayaha adduunka kulay mawduucani inta badan waa iska xasaasi marka mar la eego walaalidooda waxay falanqayn tahay haddana waxaan moodaa hablaha qaar inay yani ragga cadaawad ay muujistaan yani ay ka eegaan dhanka inay raggu yani cadow yihiin inay raggu sidan yihiin ragguna yani muslim aan garan karayno doorkii haweenka ugu jiraan yani sida u ilaaliya afarta midha khaldanta iyo waxa weeyaan khaladaadka yar dhaca baaadmiga loo wadiyay oo rag iyo dumarba waxa weeyaan aad ugu weyn marka waxa weeyaan mawaadiicda noocan oo kala marka la taagan yahay inaan cadaawad isku muujinin horeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu isku kana abuuray Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu isku kana asturay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu adduunka inoo keenay saynu waxa weeyaan maamulkiisa iyo mulkidiisa buu yeelana marka mawaadiicda noocan oo kala marka lagu jiro hablaha aad baa looga faa'iideystaa oo mashaariicdii ciyaar NGO-ga ee feministiska habla badan sidii sida lagu lahaa way fogaadeen yani waan dareemay inaan mawduuca ka baxay laakiin waxaan doonayaa intii hadalkayga ugu dambeysay waxaan doonayaa inaan hablaha weysiyo maanta mashaariic badan baa jiro hablihii feminist lagaga dhigayo feminism macnaheedu waxa weeyaan in ragga la colaytamo ragga in la colaytamo hadda waxay keenaysaa dadka in dumarkii guursaday keento yani inanta nin nacab debaadki karta hadhow tala dadana waa inay kala ka shaqeysaan that's all يعني هجير دك يعني ما قصة ولا حاجة جيزة إنه نكى كورسنا وكمان أريمها مع المكلا تاني إن هذا قلت حضرتك أنا دك هذا هذا يا مشاريع بدون بالبساطات وهيدا كبساطات
aad uga taxadara hablo fara badan oo dareemi karaysa sida loo baabiyo noloshooda waxa weeyaan rag waa walaalihiin waa walaalkiin waa waalidkii intii khaldanta already sharciga la marinaya yaala already idina wad khaldantaa waxa weeyaan rag laftigooduna waa khaldan marka ta khaladka waxa loo yahay inaan baa loo yahay qodob yar baan carabaabiya ah kursiyadan dambe inta badan dilalkii waxaa soo kordhay mashaariic baa ka dambaysa iyada laftigeeda marka la eegayo waxa weeyaan qodobo badan baa ka dambeeya baaritaan loo baahan tahay marka waxa weeyaan hablow yayna ku colaytamin qodobadan yarare sokiya meelaha saga gabadha han bay yeelan kartaa gabadha hormar bay gaari kartaa dhan kale guurkii gabadha in la culeysiyaa la doonaya la yiraahdo guur hormar ma gaari kartaa haddaad guursato waad guursan kartaa because waxaad ka qiimo badan tahay yani waxa weeyaan ka sareysa markaad wax barato waxa weeyaan ninkii ka sareysa waayo waxaad sii kortay jaran ka sareysa markii aanad waxaan qori jirin waxna akhri jirin marka intaas ku soo gabagabeyn raalinayaa hadan mawduuca waraahdi u dambeysay kadibna waxaynu qaadan doonaa insha Allah min laba su'aalood aad u kooban waqtiga yar qof kastaaba haddii su'aal aad u diyaar tahay had diyaar garoobo bisad macalinkan ku soo wareejin doona insha Allah su'aasha isla mid ah waa kaalinta laga yahay dumarku ka jira horumarka ragga adoo inoo qodobayn doona insha Allah aad inuu soo koobi doona ku soo dhaw macallin waxa ay kullay gabadhu ugu jirtaa ninka ragga door muhiim ah waa kii had raawi lahaa kuma gala adduunyadan inagoo socodko marwa garasho dheer baa ninka ragga u gudunaa iyada gudoonkii iyo gaadhayaa naftaada iyo gaadiidka reerka iyo gurgurshaada noqoto arrin kula gafaysee haddaan gaari kula jirin ilaa nolosha guul male waxaad halkaa ka dareemaysaa inay door muhiima ugu fadhido horta dumarku kollay ninka ragga ah ilaysbay u yihiin iyaduna ilaysbay u tahay oo nolosha koonka iyagaa iska soo xushay mar labaad macallin bay u tahay isna macallin buu yahay oo ah inay nolosha wadaagaan wax kaste oo waayo aragnimo ah oo qofka kala dheeryahay mar saddexaad horseed bay u tahay noloshiisa iyo guushiisa isna horseed buu yahay nolosheeda iyo guusheeda iyadoo ujeedadu tahay haddii ninka ragii uu guursado gabadh han leh oo mustaqbal leh inuu horseed u noqon karo inay sii socoto oo sii wadato geedi socodka nolosheeda ama hadday waxbarasho ku jirto oo jaamacad bilowgeega isguursadaan inuu ogolaan karo inay jaamacaddii gabagabaysato inuu mas-uuliyadda qaadi karo inay master bilaabato inuu mas-uuliyadda qaadi karo inay PhD gaadho waayo aqoontaas waxay kusoo noqonaysaa waa naftiisa mar waa ubadkiisii marna waa isagii mar isagay kusoo noqonaysaayo waxaa laga yaabaa aragtida dheer ama aqoonta dheer ee gabadhaasi baratay inay ku gaadhgaraysay ku hegto goolal fara badan oo isagu nolosha ka lahaa mar kalena ubadkiisiiba kusoo noqonaysaayo dee hooyo aqoon fara badan baratay oo PhD gaadhay waxaa laga yaabaa ubadkeedu inay noqdaan ubad inta badan nolosha ku guulaysta ilaahay datiisuna waa meel mar saddexaad dugsi bay u tahay isna dugaal buu yahay waxa weeyaan dugsi bay u tahay waa kan ka soo weegartay ama ka soo dhaweystay ummadda inteedii kale iyadna dugaal bay u tahay waa kan ka eeganaya koonka kale intiisii kale waxaan qabaa kolley kolkaa inay horumar doora ka qaadato ninka ragga gabadhu qodobada kale muhiimka waxaa ka mid a waxay qayb ka tahay dhaqankiisa oo waxa la yidhaahdaa gabadha wanaagsani way toosisaa ninka dhaqanka xun leh laakiin ninka wanaagsani ma toosin karo gabadha dhaqanka xun leh taasaynu dareemi karno gabadhu doorka muhiimka ah ee ka qaadatay qorqoridda qiimaynta iyo qaayowyeelidda sawjkeega ama odaygeeda waxay qaab ka qaadataa mas-uuliyadda guriga waxaa laga yaaba ninku hadduu balwad lahaa ama dhibaatooyin kale kolka hore lahaa inay gabadh geesiyada oo hanle ay hesho oo ay noloshiisii qaabayso halganka nolosha ayay iyadana door muhiima ka qaadataa qodob kale halganka waxay uga qayb qaadanaysaa han kastuu isagu nolosha ka lahaa waxaa laga yaaba inay qorshayaashiisa qayb ka noqoto waxaa laga yaaba inay dhiirigelintiisa qayb ka noqoto rag badan dee nolosha guulaystay waxa ka dambeeyey waa hooyadii waa walaashii waa gabadhiisa oo inta badan dhacda cafwan sidoo kale waxay door muhiima ka qaadataa gargaarka ha noqoto qoyskiisa nafsadiisa ehelkiisa iyo bulshada inteeda kalaba inay noqon karto gabadh u gargaarta jaarkeega sidoo nabiga kaleey salaatu wasalaam ina sheegay oo hadday ummaddu haysato waxaad habeenka maalinta wax la cunayo wax ka badan ay nabiga kaleey salaatu wasalaam ina yiri gaarsiiya oo ka warhaya kolkaasi dadka jaarkiina marka inay noqon karto gabadh gargaarta dadka jaarkeega ehelkiisa odayga iyo iyada ehelkeega waxay ka qayb qaadataa iyo door muhiim ka qaadataa waxbarashada sawjkeega waxa laga yaabaa inay nolosha ciriiri ku noqoto
waxaa laga yaabaa in maxaa dhahday uu mas-uuliyaddii guriga iyo isku wadi kari waayo waxbarashadiisii laakiin gabadha hadday tahay gabadh waxbaratay ama gabadha aqoon-yahanada waxaa laga yaabaa inay doorka buuxin karto meelo badan oo isagu uu ka dareemayo inuu gaabsi ka jiro waxay door muhiima ka qaadatay gubaabada inay ku dhiirigelin karto ku socodsiin karto maxaan dhahday doorka nolosha ka rabo akhlaaqiyaadkiisa oo waxa weeyaan dee ninka raga kolley dee sayna fareenaas u sinayn ayaanay maxaan dhahday u sinayn dadku waxaa laga yaabaa akhlaaqiyaadka qofka inay door muhiima ka qaadato kolkaa waxaan qabaa qodobadaas aasaas u ah ama waxaan qabaa u muhiimsan abwaan yaasiin nin la idhaahdo maxamed kaahir ayaa lahaa ilaysay habeeyaay daryeelay ammaanay anfacay aqoonay aasaaska nolosha isagoo marwadiisa ka sheekeynay halkaa waxaad ka dareemi kartaa markuu aasaaska noloshii leeyahay inay tadawur kaste horumar kaste wax kastuu doonaya nolosha ku tallaabsado inay door muhiima ka qaadatay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu